warbaahinta dhacdooyinka waa warbaahin casri ah oo caalami ah isla markaana idin soo bandhigaysa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhabka hadal waraysiyo kala duwan oo maqal iyo muuqaalba leh iyo weliba wararka ugu dambeeya ka dhaca daafaha caalamka iyo weliba waddanka Soomaaliya warbaahinta dhacdooyinka wararka iyo warbixinada iyo waraysiyada idin soo gudbiso waxa aad ka daalcan kartaan www.dacdooyinka.com ama dacdooyinka.net haddaba ha moogaanin hana ka maqnaanin warbaahinta dhacdooyinka oo idin soo bandhigaysa warar macluumaad xambaarsan kama maqna sheekooyinka xiisaha leh ee ay warbaahinta dhacdooyinku soo diyaarisay idinna soo bandhigayso waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim khadka telefonka ee magaalada Kismaayo waxaa xiriiray xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo jooga magaalada Kismaayo xildhibaan Cabdirashiid wuxuu salaamay waxaad ka warantaa bal shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa maadaama aad Kismaayo joogto xildhibaan baarlamaanka ka tirsan aad tahay sida aad u aragto بسم الله الرحمن الرحيم حسن عبد الله السلام يا أديك iyo dhageystayaasha meel kasta ay joogaan runaantii muddo badan ayaa arintani jitamaysay meelo badan soo martay gunaanadkii shalay waatii lagu saxiixay magaalada Addis Ababa heshiiskaas guud ahaan dadka gobolada Jubbooyinku waa soo dhaweynayaan si buuxda oo 100% waana taageersan yihiin waxaana filayaa taageeradooda inaad ku aragteen meelo badan oo warbaahinta caalamka ka mid ah ilaa xalay ilaa shalay galabtii marka la seexay ilaa maanta ilaa caawa magaalada Kismaayo iyo dhammaan gobolada Jubbooyinkaba waa laga dabaaldegayaa waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin maxaan ku dhahay afgaradkaas dowladda iyo maamulka Jubba ay wada gaadheen ku saabsan in la wada shaqeeyo in horumar la gaadho in nabadda laga wada shaqeeyo in waxyaabihii jiray oo dhan meesha laga saaro waxaana maanta aan rabaa inaan kuu sheego shalay galabtii laga bilaabo baabuur magaalada Kismaayo jooga oo calanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhaganayn ma joogo mana socdo wadooyinka dadkuna gacanta ay ku wataan sidoo kale waana ugu hambalyeynaa madaxweynaha go'aamada iyo tanaasulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa dhiirigelinta iyo hawshaas xalka gaaro qofka mas'uulka leaderkaana waxa lagu yaqaanaa arrimaha caqabadaha inuu xalliyo oo xalka gaaro sidoo kale mas'uuliyiintii dhinaca gobolada Jubbooyinka ka socotayna waan ugu hambalyeynaa beesha caalamka ka qayb qaadatay ama Afrikaan ha noqdaan ama kuwa Afrikaan ahayn ha noqdaan waa ugu hambalyeynaa waanan ku taageerayna dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay hawshaas doorka ay ku leeyihiin wanaagsan ka qaataan maamulada qaarkood arrintaasi waa ay dhaliileen sida gobolka Bay oo kale dhinaca Puntland wararka qaar sidaas oo kale ayay sheegayaan marka saad u arki karaysaa arrimaha noocaas waxaan u arki karaa horta dhaliilo waa iska iman karaan oo interesyada iyo danaha waa lagu kala duwan yahay laakiin meelaha wax laga tabanayo ama meelaha wax laga tabahayo oo dhani waa laga wada hadli doonaa cidii ay khusayso cidii kale ee Soomaaliya ee maxaan ku yiraahdaa dana guud ka dhaxeeyaan iyaduna wixii dana waa ka wada hadli doontaa laakiin waxaan rajaynayaa inay dadku ku wada qanci doonaan marka ay si fiican u fahmaan runaantii waxaan meelaha qaar ka arkaa warbaahintu sida ay wax u sheegtay ama wax u qortay ayaa wax badan khaladaad ku jiraan marka khaladaadka badan ayaa dadka shaki badan geliyay meelaha qaarkood oo laga yaabo dhaliilo badan inay ka yimaadaan oo warbaahintu ay ama ka hor dhaceen ama aynan sidii saxda ahayd u qorin marka waxaan dhihi karaa si kastaba ha noqotee barnaamijkani waa bilow fiican isafgarada Soomaali meel isugu tagtay oo heshiisay ciddii maaragtay dee si kale u aragtaa waxay u baahan tahay inay sidaasi ka duwan u fakarto marka kulliba dawladda iyo maamulka hadda kumeel gaarka ee Jubba loogu magac daray maadaama heshiiskaasi ay wada gaareen ma u malaynaysaa maadaama xildhibaan baarlamaanka ka tirsan ay tahay in dhibaato kale uu u keeni karayo oo ku saabsan in maamulada qaarkood ama deegaanada qaarkood iyaguna
tallaabooyin noocaas oo kale ay qaataan? wallahi dee horta deegaamada inay tallaabo kala qaataan oo ay maamul dhistaan oo ay goboladooda dhisaan de waa nidaam federaaliyaba weeyaan. hadda ma dhibaato maba ahanba in gobollo kale ay qaadaan tallaabooyin ay maamullo ku dhisayaan iyagoo maraya dariiq wanaagsan. waa wax loo baahan yahay weya, waana soo dhaweynaynaa anagu waana taageeraynaa mar walba, laakiin waxaa la rabaa inay noqoto wax dadka deegaankaasina ay wada wataan maxaan ku idhaahdaa nidaamka federaaliga waafaqsan. marka dee maba noqonaysaba wax caqabada ma noqonaysa in wax la dhiso. dawladana danbaa ugu jirta, dawladan 4 sana la doortay, 4 sano 1 sano waa tagtay, 3 sana hadday sanadka ugu dambeeyana waa iska buuq iyo qayl u noqonayaa. intaas marka waxyaabaha loo idmaday dawladda waxaa kamid a inay amnigana soo celiso, nidaamyada maamuladana ay horumariso. marka runtii waxaan isleeyahay wanaag badan baa ku jira. ciddii wax qabanaysana in wax lala qabto waa loo baahan yahay. maamulkan hadda halkan ka dhismay runtii caqabadaha iyo mushkulada iyo waktiga dheer uu soo jiitamayo intaa dadka deegaankan ayaa isku xisaabtamay xag dhaqaale iyo xag amni iyo xag maxaan ku idhaahdaa maskaxeed intaba oo wakti badan geliyey. run ahaantiina ma sahlana dad intaa la eg inay muddo intaa la eg shir u fadhiyaan iyadoon cid dibadda oo gacan siinaysaa jirin. waa tahay hadda ma la dhihi karaa dawladda Soomaaliya nidaamka federaalka ah waxa ay doonaysaa inay hirgeliso maadaama ay heshiiskan saxiixday? sideedse adigu ka xildhibaan ahaan u aragtaa hadalka madaxweyne Faroole ee ah in dawladdu ay jebisay nidaamkii habka federalismka ahaa? anigu waxaan mar walba taageerayaa nidaamka dastuurka ku qoran ee lagu heshiiyey oo ah in federaalku uu hirgalo. waxaanan isleeyahay mar raba inaan dib ugu laabto xiliyo hore is-eedayntii iyo faraysku fiiqii iyo waxyaabihii dee soo jiray. mar raba inaan dib ugu laabto, waxaan jecel lahay inaan horumar u gudubno. marka dhinaca kalena madaxweyne Faroole uu ka hadlay inay dawladdu waxyaabo jebisay, aniga Faroole madaxweynaha Puntland u jawaabana xaq uma lihi. arrin aniga ii taalana maaha. waxa weeye ciddii ku aboon bay ka wada hadli doonaan haddii aan la yidhaahdo, waana ku ixtiraamaya aniga fikirkiisa. waa tahay marka maadaama dekeda iyo la yidhi 6 bilood ha maamusho maamulka kumeel gaarka ah ee Jubba, ciidamaduna ha hoos tagaan dawladda dhexe ee Soomaaliya inta la isku dhafo, nidaamka noocaasi sidee ku hirgeli karaa ay kula tahay? waxaan hirgeli karin ma jiraan. hadda 6 bilood kadib dawladda lagu wareejiyey iyo saas iyo waxaasi wax macno samaynaya ma. dadka Soomaaliyeed inay safgartaan, heshiiyaan, isku kalsoonaadaan, kalsooni ay jirto. intaa hadday jirto wax dhibaatayba ma jirayaan. yaa maamulaya yaan maamulaynin meesha way ka baxaysaa. hala istartigareeyo in kalsoonida la bildigareeyo oo sida haddaba dhacday oo madaxweynaha dawladda federaalka gobolada Jubbooyinka 100% baa laga taageersan yahay. caawa diyaar waxaa loo yahay inuu yimaado, dadka la fadhiisto, waxay rabaan uu weydiiyo, waxa uu rabo uu sheego. waa madaxweynahoodii, maxaan ku idhaahdaa taladiisa iyo fikirkiisana waa dhegeysanayaan, iyaguna danahooday sheeganayaan. wixii marka sharcigana waafaqsan danaha Soomaaliyeed oo dhan madaxweynuhuna wuxuu madaxweyne u yahay inuu shacabka wanaagooda iyo horumarkooda kala shaqeeyo. taana diyaar buu yahay. waa tahay cabdirashiid dadkii ka soo horjeeday xilligii madaxweyne Jubbaland uu ku dhawaaqay ama doortay, iyaguna madaxweynayaasha iyaguna kaga dhawaaqay meesha dagaalka la galay madaxweynaha Jubbaland oo dhiiga badan ku daatay, weli qaarkood waa soo taagan yihiin. marka maxaad u malaynayaa kuwaasi in lagu qanci karayo? waa ka xunaa horta dagaalka ka dhacay magaalada Kismaayo sidoo ku dhacay iyo sidoo ku bilowday iyo sababihii keenayna waa wax cad weey. adiguna waa ogtahay, anaguna waa ognahay. mana rabaa inaan dib ugu laabano oo wax badan baan ku daalay arrinta sharaxadeeda. laakiin shakhsiyaadka aad sheegtay inay magacyo sheegteen oo ama maartay halkan ay wax kaga dhawaaqeen wuxuu waxa weeye dhalanteed ma shaqeeyo. wixii dhalanteed oo aan jirin ma shaqeeyaan. marka qofkuna waxaa la rabaa waxaad shalay aaminsanayd hadday shaqayn waayaan inaad wax kale si kale u fakertaa loo baahan yahay. marka anigu dadka Soomaaliyeed ee wanaagga jecel waxaan ugu baaqayaa inay waa dad Soomaaliyeed, ixtiraam bay leeyihiin, xuquuq bay leeyihiin, rabitaan bay yeelan karaan, ambition bay yeelan karaan.
laakiin waa ku hirgeli waayo waxaa la rabaa inaad markaa danta iyo wanaagga iyo soomaalinimada ka raacdo marka waxaan leeyahay arrimahaasi hadday shaqayn waayeen sidaasi ka duwan inaad ufakistaan baa loo baahan yahay haddii ay maaragtay iyagu go-aan ka qaataan inay sidoodaas iyo waxyaabahaas kusii jiraan dee waxa weeye waxay ku dambayn doontaa inaan taasi aanay shaqayn doonin. Okay, marka laakiin door ma uga firan yahay maadaama ay iyagu leeyihiin deegaanka qayb baan ka nahay ma umalaynaysaa in iyaga wada hadalkooda loogu baaqo oo loo yeero oo maaragtay dib u heshiisiintan hadda dawladda ku baaqday maamulka Jubbana uu taageeray ee dhacaya in laga soo qaybgeliyo taasoo ma qabtid laba weeyaan wixii dadka ama han lahaa ama maxaan ku idhaahdaa rabitaan lahaa iyagu arrintan dee markii ay ku qaylgaroobeen dadkooda dhinac ka raacay ama xamar ha tagaan ama kismaayo ha joogaan ama meel kale ha joogaan dabcan dib u heshiisiinta waa ka qayb qaadan karaan laakiin ciddii maxaan ku idhahdaa waxaa wax ka baxsan la timid oo maxaan ku idhahdaa ama kooxahan argagixisada qayb ka noqday ama al-shabaab iyo wax daran wax ku darsaday hadee dadku siday ku aaminaan waa adkaanaysaa marka ma waxaad ula jeedaa baahiidaale oo mar idaacadaha ka yidhi annagu maaragtay maadaama arrintaasaan u dhacday al-shabaab baan dhinacooda xataa tegaynaa warar noocaasa laga sheegaya ma halkaad ujeedaa aniga ma rabo inaan shaksi magaciis sheego laakiin waxaan kuu sheegaya cid kasta oo xidhiidh lale ama cid kasta oo macaamil lale ama cid kasta oo wada shaqayn lale al-shabaab waxa weeye waa nidaam ka duwan ama system ka duwan sida systemka dib u heshiisiintu hadda laga hadlaya ay u dhacayso si gaara ayaa looga dhiilgaraynaya loogalana hadlaya al-shabaab nimanka dhalinyarada ee shabaab ku khaldeen inaysa soo dhiibaan waa la ogol yahay markaysa soo dhiibaanna qaab baa loola dhaqmaa marka dib u heshiisiintu waa furan tahay laakiin waxay u furan tahay wixii nidaamka dawliga iyo rabitaanka iyo systemkan aan weli ka bixin ciddii laakiin siyaasado kale oo noocaasa dhex gashay aniga ma filayo in albaab u furan yahay hadda aan ka ahayn sida shabaabka loola dhaqmayo waad mahadsan tahay cabdirashiid xidig oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka ahna gudoomiyaha guddiga maamulka iyo amniga ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aad baan kuu salaamaya cabdirashiid ay xasan waa mahadsan dawlad warbaahinta dhacdooyinka waa warbaahin casri ah oo caalami ah isla markaana idin soo bandhigaysa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhabka hadal waraysiyo kala duwan oo maqal iyo muuqaalba leh iyo weliba wararka ugu dambeeya ka dhaca daafaha caalamka iyo weliba waddanka Soomaaliya warbaahinta dhacdooyinka wararka iyo warbixinada iyo waraysiyada idin soo gudbiso waxa aad ka daalcan kartaan www.dacdooyinka.com ama dacdooyinka.net haddaba ha moogaanin hana ka maqnaanin warbaahinta dhacdooyinka oo idin soo bandhigaysa warar macluumaad xambaarsan kama maqnaa sheekooyinka xiisaha leh ee ay warbaahinta dhacdooyinku soo diyaarisay idinna soo bandhigayso